arrimaha kan la isla dhex wareegayo maalmahan dambe waxaan aad u jeclaystay markaasi maadaama anigu waxaan ahay shakhsi uga soo baxay gobolka awdal ee xisbiga kulmiye waxaan jeclaystay markaasi inaan si xog ogaalnimo uga hadlo arrinta tan shir guddoonka daaran xaqiiqatan anigu waxaan ahay Abubakar Saciid Cali waxaan ahay xildhibaankii ugu codka badnaa ee ka soo baxay gobolkan awdal sidaa darteed marka laga hadlayo arrimahan shir guddoonka waxaan ahay shakhsigii ugu horreeyay ee ka hadlay arrintan saan u doonayno iyadoo markaasi aan u wada joogno shir ay u dhannaayeen madaxda xisbiga iyo dhammaan inta ugu badan aan idhaahde xildhibaanadii ka soo baxay xisbiga kulmiye halkaasoo ku caddeeyey markaasi inaan u taagannahay doonista kursiga ku-xigeenka koobaad ee golaha baarlamaanka arrintaasi waxay soo socotaba waxay gaadhay inaan markaasi iskugu nimaadno dhammaan 12kii xubnood ka soo baxay gobolka awdal si aan markaas u doonno ama aan u raadinno guddoomiye ku-xigeenka koobaad annagoo markaasi halkaa ujeedda leh waxaa dhacday in shaxdii isbaahaysigu markaa ay siisay guddoomiye ku-xigeenka labaad taasi markaa waxay noqotay arrintii ugu horreysay ee markaa wiiqday hankaygii aan ku doonaynay guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha baarlamaanka intaa dabadeed annagu ka xisbiga kulmiye ahaan xildhibaanada ka soo baxay kamaanaan hadhin damac ayagaasi ahaa inaan raadinno guddoomiye ku-xigeenka koobaad arrintaasi markaasi waxaan xitaa kala gaadhnay oon kala hadalnay oon la fadhiisannay madaxweynaha ahna guddoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi laakiin arrinta mushkiladda noqotay waxay ahayd in markaasi waxa weeye hal xisbi aanu lahayn xildhibaano u go'aamin kara hanashada shir guddoonka sidaa darteed waa tan keentay markaas in isbaahaysigu abuurmo kaasi oo siiyey markaasi gobolka awdal guddoomiye ku-xigeenka labaad taasina xaqiiqatan ma ahayn hankaygii aan u soconnay markii annagu ishiyugaasi ama arrintaasi taagnayd aan ilaa heer madaxweyne aan isla hor fadhiisannay arrintaa waan falanqaynay waxaa halkaa imminka dadku ay wareejinayaan inuu kulmiye diiday oona waxba u ogolayn gobolka awdal arrintaada haddayda ka shaafiyo bulshada gobolka awdal waxaan u sheegayaa inuu madaxweynuhu oo halkaa noo soo dhigay oo yidhi waxa weeyaan maanta waxaan u baahannahay haddaan kulmiye nahay tiradada ayaan u baahannahay si aan u helno shir guddoonka sidaa darteed waxba kama qabo inaad shir guddoonka ka soo qayb gashaan hase ahaatee maxaad ku soo dari kartaan arrintaas markaa waxay mushkilad nagu noqotay walaalahaygii joogay dhinaca isbaahaysigu inay iyagu laftirkoogan markaa ku qanacsanaayeen inay markaas halkaas joogaan markuu madaxweynuhu markaasi noo soo bandhigay arrintaasi ee annaga gacanta noogu ridow ka taliya yidhi waxaan qaadannay in aan xisbiga u fasaxno isbaahaysiga inuu kala yimaado wax kaba xisbiga sidaas limadana waxaan markaas qaadannay inaan gobolka markaas isna u qaadno arrimo ay ka mid yihiin mashaariic hadday tahay miisaaniyad haddii ay tahay mansabyo kale si waddanka iyo gobolkaba loogu horumariyo arrintaasi madaxweynaha waan kala hadalnay mashaariicda hadday tahay miisaaniyadda iyo hadday tahay saami qaysiga intaba madaxweynuhu wuxuu si wanaagsan noola qaatay oo runa inuu arrintaasi diyaar noola yahay wuxuuna madaxweynuhu afkiisa ka yidhi waxa weeye maanta gobolka awdal uu ka koray mashaariic yaryar oo iskuuliyo wax noocaas oo kale ah waxaad la timaadaan mashaariic waaweyn ilaa heer tuulo gaari karta soo qora ayaa anaga nagu yidhi annaga arrintaasi nagu soo wareegtay waxaan diyaar u nahay in aan soo diyaarinno mashaariic gaadha magaalo kasta iyo degmo kastoo gobolka ah xaqiiqatan waxaan kaloon farayaa cid kastoo haysa markaas mashaariic saxa oo lagu guulaysan karo isla mar ahaantaana dadka lagu horumarinayo in annaga laftarkayga markaas nala soo xidhiidhaan si aan qayb uga noqonno aan uga wada noqonno horumarka bulshadeenna waxaan qaadannay in xisbiguna guulaysto ay awdalna guulaysato sababtoo ah guusha xisbigu
waa guushayada haddaan nahay xildhibaanadiisa guusha xildhibaankuna waa guusha bulshadii soo dooratay waxaan aaminsanahay inuu kulmiye markaas ku taagan yahay dhabbadii saxda ahayd ee loogu adeegi lahaa bulshada aan matalayno waxa xusid mudan madaxweynuhu inuu si wanaagsan nooga aqbalay markaan ula tagnay in la soo daayo dhalinyartii xidhxidhnayd isla anagoo halkii fadhinayna oo markaasi ku amray janankii ciidamada in la soo daayo dadkaasi arrintaasi waxaa ka wada qayb galay shanteeda xildhibaan iyagoo markaa ay wehelinayaan inay sii joogeen labada wasiir ee caafimaadka iyo beeruhu iyo jananka ciidamada booliska sidaa darteed waxaan halkan bulshada gobolka awdal uga sheegayaa inaan annagu nahay ciddii matalaysay haddii ay saa tahayna waxa weeye aan kana soo baxnay xisbiga kulmiye waxaan diyaar u nahay inaan kulmiye dhisno sidaas lamidana waxa weeye wixii bulshada aan wakiilka uga ahayn maaha inaan uga tagnay laakiin waan uga doonaynaa bulshada wixii aan lanooga magaranaysaa fadhiyey aan dhabarka soo saaranay waan ku maqannahay waan kala xisaabtamaynaa xisbiga sidaas lamida waxa weeye waan ku daba joogaynaa xisbigana waan dhisaynaa waxaan aad iyo aad u tilmaamayaa aan u jecelahay inaan markaasi aan fahansiiyo bulshadeenna gobolka awdal inay maanta ku jahwareersan yihiin mansab keliyaata oo aanay faa'iidadiisu sooba gaadhayn qofna aanu soo gaadhayn laakiin maskaxdeenna aan u furno in gobolka awdal uu u baahan yahay wax ka badan mansabkan maanta lagu dawaqsan yahay haddii ay tahay mashaariic horumarineed waxaan xasuusan karnaa runtii markii aan soo ololeysanaynay ee aan soo marinay dibadaha markaan soo maraynay duruufta ka muuqatay deegaanada aan soo marnay waxaad ku arkaysaa hooyo uur leh oo joogta meel cusbitaalano ka dhoweyn waxaad arkaysay maxay daddan oo meel ku nool oo waddadoodu ay aad u raf tahay ama ay suurtagal ahayn in ay si yaro fudud ku gaadhaan maxay magaalada waxaad arkaysaa markaa caafimaadka iyo biyuhuba inay markaa week ku ahaayeen ama ay ku liidatay bulshooyinkaas mashaariic waxaan u baahanahay dadka lagu horumariyo iyaan qabaa si markaasi aan u noqono dadkii saxda ahaa ee la soo doortay waxaan leeyahay walaalahayga ka soo baxay gobolka awdal iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxa wanaagsan in garabka la isku qabsado sidii looga wada tashan lahaa horumarinta dadka iyo dalka bulshada ku dhaqan gobolka awdal waxaan aad iyo aad markaas maanta aan halkan doonaya inaan ka xuso oo kale waxaan ku maqannaa suuqa ama mar kasta baan maqannaa in isbaahaysigu ay yidhaahdaan xildhibaanaa la iibsanaya waxaase yaab aniga shalay galabtii ugu noqotay in anigaygan abubakar siciid caliya ya la ii soo bandhigay lacag si aan ugu codeeyo isbaahaysiga waxaa la ii soo bandhigay lacag ah $100,000 aanuunan been sheegayn xaqiiqatan anigoo abubakar oo isa qofkaan ahay qiyamkayga arrintaasi waxay ku noqotaa arrin qariiba oon la yaabay mana yihi qof lacagi goyso runtii waxaan u sheegayaa bulshadeeda gobolka awdal inaan nahay xildhibaanadii ay soo doorteen oo u maqan wixii ay soo doorteen waxaan ballan qaadayaa insha Allah tacaala inaan mar kasta u taagnaan doono una taaganahay gaar ahaan abubakar sidii aan u matali lahaa bulshadii soo dooratay iyo guud ahaan gobolka awdal iyo qarankaba waxaan aad iyo aad markaasi ugu talinayaa bulshadu bal in ay eegto waa maxay waxaan u baahannahay ma qof baa la shaqo geynayaa mise waxaan u baahannahay wixii bulshada baahideeda buuxin lahaas waxaan aad u jeclaystay markaasi inaan ku soo gabagabeeyo inaan anigu aaminsanahay mar labaad iyo mar saddexaadba kulmiye inuu yahay meeshii aan uga adeegi lahayn danta iyo baahida bulshadayna haysata waxaanan u baahannahay fikir intaa ka dheer oo soo gaadha markaasi magaalo ilaa miyi dadka wada gaadha borojegyo noocaas oo horumarineed ayaan u baahannahay waxaa ogtihiin inay dadteenna ama bulshadeenna ama dhalinyarteennu maanta ay baahsan tahay camal la'aantu waxaan u baahannahay shaqo abuur in la iska kaashado dawlad iyo bulshaba waxaan u baahannahay inaan soo bandhigno fikirno maxaa dadkeena lagu horumari karaa laakiin maaha
in kaarar yaroo magaranaysa daciifa ama raqiisa la inaga xoqdo oo dadkan lagu jaahwareeriyo wax soo gaaban laakiin han ka fikirno mustaqbalkeena fog iyo sidii dadkani ku noqon lahaayeen kuwa ka baxa baahiyaadkan mar kasta ay ka cabanayaan waxaan aad uga xumahay in kulmiye iyo gobolka loo kala waraabeeyo waxaan leeyahay kulmiye mansabkan imika xitaa Axmed Yaasiin Sheekh Ala ayaan uu ku fadhiyo horta waa kii bixiyay waxa kale oo bulshada u sheegaya inuu kulmiye maanta uga leex jecel badan yahay gobolka sidii markii hore ahayd maadaama uu codkii ugu badnaa gobolka uu ka helay maanta waad mahadsantahay Shucayb Cishqi MMTV magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal